مرحبا صاحب بيال anigu waxaan Zeynab cimrigeyguna waa 19 sano waxaan dhigtaa jaamacad waxa la noolay qoyskeyga nolosheedu waxay ahayd wanaagsan ilaa maalin aabahey uu qalkayga soo galay isagoo dhahaya wiilka saaxiibkeygu wuxuu rabaa inuu adiga guursado haddana waxa la joogaa xilliga guurkaaga waa wiil wanaagsan waxaan dhahay laakiin aab had guurku ma fikirayo wuxuu dhahay ma waxaad rabtaa inaad guur la'aan joogto bari ayuu imaanayaa si aan isugu waafaqno aabaheygu wuu baxay isagoon jaan isiinin aad ayaan wax naaqay wax dhacay laakiin midda wax badan ma sii jirin maalinta labaad waxaan fadhiyey qolkeyga hooyada ayaa soo gashay idoo dhehaysa wuu imaaday haya soo xir dhar qurxoon kadibna soo bax waan sameeyey sida hooyadayda i dhahday aniguna hadlin waxaan fadhiistay aabaheyga dhinacii anigoon awoodin inaan madaxeega kor u qaado oo aan fiiriyo aabaheygu wuxuu bilaabay inuu saaxiibkiis kala hadla arrimaha guurka isagoo aan ra'yigayga dhegaysan haddaan raba iyo haddii kale waan isceliyey xoogaa ilaa ay ka baxeen aabaheyga waxaan u sheegay inaan guurkan ogoleen waa waxbarashadeeda ma dhammaysan wuxuu dhahay aabaheyga wuu ku oggolaanaya waxbarashadaada waan ka aamusay waxaan galay qolkeyga waxaan bilaabay inaan guurka isu diyaariyo sidii ay waalidiinteeda rabaan 2 bil ayaa soo maray anigoo isdiyaarinaya arooska qof oo aan garanayn ilaa magaciisa maahane laakiin waxaan naxay markaan ka inuu soo fiirinayo wuxuu u muuqday mid murugaysan way dhammaatay xafladda arooska guriga ayaan soo aadnay wuxuu si xanaaq leh igu dhahay aniga kuma jecli mana rabin inaan guursado laakiin aabahey igu waajibiyey saaxiibtinimada isaga aabaa ka dhexays darteed madaxaan ululay wuxuu ii raaciyey kani waa qolkaaga anigana waxaan seexanayaa qol kale ma la hadlin waxaan galay qolkeyga dharkaan iska beddelay waana seexday guurkeenna waxaa ka soo wareegay 6 bil waxaan iskula dhaqmaynay si dad aan isnaqaan oo kale maalin waxaan aadaynay qoyskiisa annagoo wadada ku jirna wuxuu fiirinayay mobilkiisa isagoo gaariga wado waxaan dhahay hortaada fiiri si aan shil u galin wuxuu jasjas ku dhahay hawalwelin wuxuuna sii watay inuu mobilka iska fiiriyo isagoo gaariga wadayo laakiin waxaan ka cabsanayaa dhacay waxaan galnay shil xilligaa kadib waxba ma arag waxaan ku soo kacay oohinta hooyadayda waan fiiriyey anigu waxba fahansaneen isla markii aan soo kacay hooyadeeda waxay dhahday allah ayaa ku maasan badbaadintaada waxaan cod hoose ku dhahay maxaa dhacay aabaheyga wuu baxay si uu dhakhtarka u keeno waxay dhahday hooyadeeda waxaad gasheen shil laakiin waad caafimaad qabtaa dhakhtarka ayaa soo galay wuxuu bilaabay baaritaankeyga wuxuu dhahay waan ka xumay waxaan ku dhahayo laakiin waxay cilad ka jirtaa lafdhabarta mana awoodo inaad mar kale socoto waan ka naxay wuxuu dhakhtar ka dhahay waxaan bilaaway inaan si daran u ooyo dhakhtarka wuu baxay aabaheyga wuxuu dhahay gabadheeda waad fiicnaanaysaa waxaan dhahay hay dhihin gabadheeda waxaad ii sheegtay inay waajib u tahay aan guursado midaana ma diidin laakiin sababtiisa ayaan socodkeyga u waayey nolosheeda waad burburiseen idinka ayaa sabab u ah xaaladdan had ku sugannahay baxa marab aragtidiina hooyadeeda xoogaa ayay oysay kadibna way baxeen waxaan ahaa mid oynaysa ilaa aan ka seexday waxaan ku soo kacay codka dhakhtarka kaasoo rabay inuu ila hadlo madaxaan ululay wuxuu ii raaciyey waan ogahay arrinkayga inuu aad u adag yahay marka dhankaaga loo fiiriyo gaar ahaan cimrigaagu aad u yar silyaab layaan u fiiriyey neef ayuu qaatay wuxuu dhahay lafdhabarta waxaa ku dhacay awgeed ma awoodnaad mar kale socoto sidoo kale ma awoodnaad dhasho waxba ma fahmin socodkayga ayaan waayey sidoo kale hooyo ma noqon karo midaan wax ugu xun ee qof walba ku dhici karaa dhakhtarka wuu baxay anigan waxaan ahaa mid fadhisa oo aan awoodin inay la tacaasho waxaan oo dhan saacada ayaa soo maray sikiisaa waxaa soo galay qofka aan rajaynaya inuu noqdo qofka ugu dambeeyaan dunidaan arko horteeda ayuu fadhiistay isagoo dhahaya waan ogay waxa kugu dhacay inay sababteedu ahaayeen wax badan ayaad ii digtay laakiin waxan way kuu qornaayeen sidoo kale ma awoodo inaan nolosha kula dhammaysto waan ku soo diraya warqadda furiinka nabadgelyo wuu baxay anigoon eraya dhihin inkastoo aan jecleen laakiin waxaan dareemay qalbigayga inuu dhaawacay nolosheedan uu burburiyey bil ayaa soo maray anigoo isbitaal ku jira xaaladdeeda nafsideed waxay ahayd mid aan wanaagsaneen ilaa aan ka go'aansaday inaan guriga ku laabto oo aan nolol cusub bilowdo dhab ahaantii waxaan ka soo baxay isbitaalka waxaana aaday guriga qoyskeyga kuwaasoon sheekadooda ii dhameen waxaan fadhiistay qolkeyga anigoo ka fikiraya waxaan sameeyo subaxii dharkaan iska beddelay waxaan ku soo baxay kursigeyga qoyskeyga ayaan la kulmay quraacda ayaan si degan ula cunay kadib waxaan u baxay dhanka albaabka guriga aabaheyga ayaa istaajiyay isagoo dhahaya xaggeed u socotaa waxaan ku dhahay jaamacadda dhammaan way naxeen jawaabtooda ma sugin guriga ayaan ka soo baxay waxaan istaajistay gaari tagsi ah daroowalka ayaa caawiyey jaamacadda ayuu i geeyey gaariga ayaan ka soo degay isagoo i caawinaya jaamacadda ayaan galay waa markii ugu horeysay anigoo kursigan ku fadhiya hortooda ayaan socday waxay ahaayeen kuwa naxsan waxaan maqlay inay u jeesjeesayaan ayna isoo fiirinayaan
anigana waxaan ku socday kalsooni ilaa aan ka galay fasalka waan fadhiistay daqiiqado kadib waxaa soo galay dhakhtarka kaasoo ka naxay xaaladdeeda wuxuu bilaabay inuu jeesjees ii dhaho ma ogi siday wax u baranayaan kuwa curyaaniinta ah maxayna soo kordhinayaan dabcan waxba iyo waxyaabo kaloo badan ayuu ii dhahay laakiin waxaa dhan is jahalsiiyey waxaan bilaabay inaan xoogga saaro waxbarashadayda 2 sano ayaa soo maray anigoo xaaladdan ku jira waxaan la kulmayay dhib iyo jeesjees ilaa ay timaaday xafladda qalinjabinta waana baasay waxaana helay daraja aad u saraysa sidoo kale jaamacadda ay qaadatay iyadoo dhammaan ay ufaanayaan xitaa digtoorkii uu jejeesayey markuu ila kulmay wuxuu dhahay waan kaa raalgelinay waxaan ku dhihi jiray madaxaan u lulay anigoon la hadlin waana iska cafiyey sannado ayaa soo maray anigoo ka adag xilligii hore waxaan macluumaad ka noqday jaamacadda ardayda badankoodu ay jeclaayeen guri ayaan gatay sidoo kale cunug ayaan ka soo qaatay meesha carruurta lagu xanaaneeyo si wadajir ayaanu guriga ugu nooleen nolosheedu wax badan ay wanaagsanaatay marmar waxaan ka fikiraa haddaysan waxaan dhici lahayn waxaad ahaan lahayd mid nool qof aan jecleen hadduu qursigayga xoog badin lahaa halkan ma soo gaari lahayn laakiin waxaan raalli ku noqday oo aan ku sabray wuxuu alla igu ibtileeyey wax walba waxaan u sameeyey si aan nafteyda dadkaba ugu sheego inaan guulaysanahay anigoo curyaamad ah hawo oggolaan qursiga inuu ku burburiyo saaxiibayaal halka ay ku dhammaatay sheekadii Zaynab haddii aad nala sugatay dhammaadka muuqaalkan waxaan kaa codsanayaa inaad like saarto muuqaalka subscribe-na janalka aadna follow soo dhahay page-keena facebookga si ay muuqaalo qurux badan kuu soo gaaraan hana ilaabin inaad saaxiibadaada la wadaagto si ay wax unugu faa'iidaan inta aynu muuqaalkale dib ugu kulmi doonno ammaano alleh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu